deganaansho la'aanta siyaasadeed ee ka jirta dawladda deegaanka Soomaalida una dhaxaysa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya mudane Mustafe Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga talada deegaanka ayaa Axmed Shide ayaa marka ka dambaysa si xoogaysanaya kadib markii maalinnimadii shalay ahayd lagu kala kacay shir lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya halkaasi oo koox ka tirsan ururka ODB-da Oromada iyo waliba shakhsiyaad uu ka mid yahay wasiir Axmed Shide ay ku doonayeen in ay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya ugu cagaajugleeyaan shirkaasi lagu qabtay magaalada Addis Ababa oo laga dalbaday madaxweyne Mustafe Maxamed Cumar in qaar ka mid ah dhagarqabayaashii hore shacabka Soomaalida Ogaadenya dhibaatada ugu geystay in dib loogu soo celiyo ka mid noqoshada golaha dhexe ee xisbiga talada deegaanka ayuu madaxweyne Mustafe Maxamed Cumar gaashaanka u daruuray kadibna waxa shakhsiyaadka ka socday kooxda ODB-da Oromada ee maamulka Oromada taladiisa haysay ay madaxweyne Mustafe Maxamed Cumar u soo jeediyeen in uu iska casilo xilka madaxtinimada dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafe Maxamed Cumar oo ku taagan dariiqa sharciga ayaa se gaashaanka u daruuray dhammaanba dalabaadkii ay u soo jeediyeen shakhsiyaadka ka tirsan kooxda ODB-da Oromada kuwaasi oo doonayay in madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee haysta taageerada shacabka Soomaaliyeed ay si jujuub iyo sharci darro uga qaadaan talada dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya kadib wixii ka dambeeyay xilligaasi waa maalinnimadii shalay ahayd shirkii lagu qabtay magaalada Addis Ababa ayaa waxa kacday xisad siyaasadeed oo cirka isku shareertay waxaana guud ahaanba shacabka Soomaalida Ogaadenya guda iyo dibadba ay si weyn uga hor yimaadeen faragelinta qaawan ee kooxda ODB-da Oromadu ay ku hayaan guud ahaanba dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya iyo xisbiga haya talada dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafe Maxamed Cumar ayaa isla gelinkii dambe ee maalinnimadii shalay ahayd waxa uu dib ugu soo noqday magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida waxaana halkaasi uu shir kula yeeshay mas'uuliyiinta kala duwan ee hay'adaha ammaanka oo ay ka mid yihiin ciidamada booliiska ciidamada arbaabatanaaga ciidamada liyu booliiska kuwa federaalka iyo sidoo kale hay'adda nabad sugidda madaxweyne Mustafe Maxamed Cumar ayaa waxa uu amray in la adkeeyo guud ahaanba ammaanka guud ee dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya lana hirgeliyo sarreynta sharciga iyo kala dambeynta iyada oo la marayo dariiqa sharciga sidoo kale madaxweyne Mustafe Maxamed Cumar waxa uu qaaday tallaabo kale oo geesinimo leh oo uu ka qaaday qaar ka mid ah shakhsiyaadka qaswadayaasha ah ee iyagu dhibaatada siyaasadeed ka dhaxwada xisbiga talada dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya haya waxaana xilkii laga xayuubiyay gudoomiyihii xarunta dhexe Cabdi Cigaal iyo sidoo kale guuleeda cali oo isna ka mid ahaa golaha wasiirada kuna magacaawna wasiirka xiriirka dadweynaha sidoo kale waxa madaxweynuhu uu xilkii ka qaaday shakhsiyaad kale oo ka mid ahaa kuwii iyagu qaska iyo qalaanqalka siyaasadeed qaybta ka ahaa doonayayna in xisbiga dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya taladeeda haya dib loogu soo celiyo dhagarqabayaashii xasuuqa iyo xadgudubka baahsan u geystay shacabka Soomaaliyeed xisbiga haya talada dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya ayaa wali waxa qayb ka ah oo ku jira golayaashiisa kala duwan qaar ka mid ah dhagarqabayaashii xasuuqa iyo xadgudubka geystay waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ku baaqayaan in dhammaanba shakhsiyaadkii lidiga ku ahaa jiritaanka shacabka Soomaalida Ogaadenya in la hor keeno maxkamadda lana mariyo cadaaladda iyo waliba ciqaabta ay mudan yihiin shakhsiyaadkan xilalka laga xayuubiyay ee ay ka mid yihiin Cabdi Cigaal iyo guuleeda cali oo ka mid ahaa dhagarqabayaashii xasuuqa iyo xadgudubyada joogtada ku soo hayay shacabka Soomaaliyeed muddadii 10 sano ahayd ee ugu dambeysay ayaana la ogeyn waxa mustaqbalka iyo masiirkoodu noqon doono waxaase jira xoga sheegaya in xabsiga loo taxaabi doono si looga abaalmariyo dunuubtii ay ka galeen shacabka Soomaalida Ogaadenya oo muddo dheer dhibaatadiisa ay ka soo qayb qaadanayeen wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaray fiidnimadan caawa ayaa waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah 47 xubnood oo ka mid ah dhagarqabayaasha wali ka mid ka systemka iyo hanaanka xisbiga dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya taladiisa haya in xabsiga loo taxaabay kuwaasi oo ay ugaarsanayeen saacadihii la soo dhaafay hay'adaha amniga ee dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadenya
madaxweyne Mustafe Muhammad Umar ayaa waxa uu ballan ku qaaday in sharciga la horkeeni doono dhammaan dambiilayaashii qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ogaadeenaya ka galay dunuubta iyo dhagaraha kala duwan intii ay u adeegayeen maamulkii kooxda TPLF ee xadgudubka iyo xasuuqa joogtada ah ku soo hayay shacabka Soomaalida ogaadeenaya muddada 27 sano ahayd ee la soo dhaafay dhinaca kale shir degdeg ah oo ay maanta yeesheen golaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay ka soo saareen go'aamo dhaxalgal ah oo wax laga qabanayo xiisadda siyaasadeed ee kooxaha danleyda ah ay ka dhex abuureen xisbiga talada dawladda deegaanka Soomaalida haya golaha dawladda ama golaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeenaya ayaa shirkooda waxa ay uga hadleen qodobo muhiim oo ay kamid yihiin sidii sharciga loo horkeeni lahaa loolana xisaabtami lahaa dhammaan dhagar qabayaasha iyada oo loo marayo dariiqa sharciga sidoo kalena loo hirgelin lahaa sareynta sharciga iyo hanaanka dawliga ah iyada oo aan cidna looga haybaysanaynin sidoo kale waxa golaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeenaya shirkaasi maanta ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ah ee magaalada Jigjiga go'aamada ay ka soo saareen kamid ah qaar kamid ah xubnihii iyagu qaska iyo qalaanqalka siyaasadeed ka dhex abuuray xisbiga oo talada laga xayuubiyay waxaana sidoo kale la magacaabay mas'uuliyiin uu kamid yahay Cabdullaahi Maxamuud Mawlid oo haatan isagu noqonaya wasiirka xiriirka dadweynaha mudane Cabdullaahi Maxamuud Mawlid ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta kadib markii uu soo dhamaaday shirkaasi ay yeesheen golaha fulinta ama golaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ee ay ka soo saareen go'aamada dhaxalgalka waxaana mudane Cabdullaahi Mawlid oo arrimahaasi ka hadlaya waa go'aamada ay soo saareen uu yiri kabnigu wuxuu ka hadlay qodobo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda deegaanka waxa jiro ogtahay inuu jiro isbedel ballaaran oo dalka ka hara qaaday iyo deegaankaba uu ka socdo marka waxa jirta shakhsiyaad hada ka hor dambiilayaal oo dadkii maartay Oxford dhibaatooyinkii dhacay iyo dambiyadii soo dhacay dad ka qayb qaatay in hadana wali la hada carqaladii ay sii wadaan oo maartay dhibaatooyinkii sii wadaan dadkii nooca wixii oo dhan la soo qoray iyo xeeraraalinta federaalku ay keentay in shakhsiyaadka talaabadoodii laga qaadi doono iyadoon cidna aan maartay loola jeedin oo loo beegsanayn mid kale waxa laga hadlay oo kale in hadii ay jiraan muwaaqirkooda ogtaa ilaa heer degmo la soo dhisay heer deegaan marka la dhisay heer degmooyin baa la soo dhisay gobolada la soo dhisay haddii xitaa ay jiraan goldololo ay jiraan shakhsiyaad la sheegay ay jiraan kuwa laftigooda si loo sixraa kabinaygu ansixiyadan in ma taqaana sixitaan muwaaqirka dib la sameeyay iyadana oo maartay la waxeeyo waxa kale oo kabinaygu eegay shakhsiyaad waxa jira iyaguna aan marnaba ahayn aan ma taqaana ka soo qayb qaadan kalfadhiyadii kabinetka aan imanaynin marna aan maartay shaqadii dawladda iyo shacabka loo hayay aan qabanin kuwaana ma taqaana talaabooyin laga qaado oo iyagana ma taqaana waxa weeye shakhsi kaste oo mas'uuliyad saaran tahay waxa mas'uuliyad ka saaran tahay ummadda xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya waxa iska la dhamaan shacabka Soomaalida maadaama iska leeyahay xubnaha kabineyga jooga iyo xubnaha maamulka jooga iyo xubnaha heer degmo jooga iyo shacabku dhamaantood waxa iyaga ay khusaysaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida waa xisbiga kaliya ee badbaadin kara baa leeyahay therefore xukuumaduna waxa la rabaa inay iyadoo taa ka duuleysa in horumarkii iyo nabadgelyadii iyo cadaalad dadka la gaarsiiyo ayaa loo baahan yahay taasa marka in tahay lagu shaqeeyo wax kasta oo lagu shaqeynaya inuu noqdo wax sharciga lagu sal looga dhigay oo dastuurka deegaanka iyo ka dalka iyadoo la cuskanayo in maartay la dhaqangeliyo tahay qofka horta dambiile ah isagu ee dambi galay di wax weey sharciga ka talaabo qaadaya maadaama sharcigu uu ka talaabo qaadayo qofka oo sharciyan talaabadiisa laga qaadayso laakiin arinta xisbiga wali lama gelin shirweyni xisbiga uu soo socdaa nidaam baana jira la mari doono nidaamka iyadoo la raacayo qofku inuu dambiilahayn oo ummadiisa u danqanayo inuu shacabkiisa horumarkeeda jecel yahay ayaa waxyaalo badan baa la eegi doonaa markaas lagu saleyn doonaa laakiin qofkii isagu sharci iyan markii hore ma taqaanaa dhibaato geystay iyo dhibaataysnaa talaabadeeda iyada laga qaadanaya qofka waxa in badan ku jirta iyaduna ma taqaanaa arin ah dadkaas soo noqonaya iyo dad baa la soo celinaya iyo waxaas jirta waxaan marnaba ayna dawladda deegaanka Soomaalida ayna gorgortan ka galin cid kaste oo bulshada dhibaataysay oo sharci darro maartay sameeysay oo dib soo gaarsiisay bulshada in ma taqaanaa aan sharciga in la hor keeno marna aan cidna gorgortan laga gali doonin intaasi kadib jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa waxa ay soo saartay bayaan cad oo ay ku muujinayso halka ay ka taagan tahay qaska iyo waliba fawdada siyaasadeed ee lagu dhex tuuray xisbiga talada dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeenaya haya
jawxo waxa ay ugu baaqday dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo waliba dowladda deegaanka Soomaalida in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka siyaasiga ah ee lagu soo dhaxtuuray xisbiga talada dowladda deegaanka Soomaalida haya bayaankani oo ay jabhadu ugu baaqday dowladda dhexe in gabi ahaanba loo baahan yahay in meesha laga saaro wax kasta oo keeni kara in talada dowladda deegaanka Soomaalida Ogaadeenaya ay ka go'do meel aan ahayn shacabka Soomaalida Ogaadeenaya ayaa waxa inoo soo koobaya wariye Maxamuud Sheekh Cali shacbiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan Somali State waxay xaq sharci ah u leeyihiin inay ka tashadaan arrimahooda siyaasadeed iyo nidaamka ismaamul ee ku qeexan dastuurka iyo shuruucda caalamiga xuquuqaha kuwooda ugu muhiimsan waxay ka mid yihiin in dadku ay si xor ah u doortaan madaxdooda waxa intaasi dheer iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu ku baaqay inuu ilaalinayo xuquuqda dimuqraadiyadeed ee bulshada iyo inuu hirgelinayo furfurnaan siyaasadeed jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxay xisbiga talada haya iyo dowladda federaalka Itoobiya ugu baaqaysaa inay ixtiraamaan doonista iyo karaamada shacbiga Soomaaliyeed oo ay iska ilaaliyaan tallaabo kasta oo carqaladeyn karta xasiloonida maamul goboleedka Soomaalida iyo danaha shacbiga Soomaaliyeed khilaaf kasta oo siyaasadeed oo yimaada waa in si daahfuran loo xaliyo iyadoo lagala tashanayo dhammaan dhinacyada saameynta ku leh xalinta iyo xasilinta khilaafka jira jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxa ka go'an inay nabadgeliyo iyo dimuqraadiyad ka hirgeliso deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Itoobiya waxayna dhinacyada saameynta ku leh oo idil ugu baaqaysaa inay mabaadi'daasi u hoggaansamaan ugu dambeyntii ayaa lagu yiri bayaanka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxay jawxo ugu baaqaysaa xisbiga talada deegaanka ee Soomaaliyeed inay iyagu xalistaan isafgaran waa kasta oo gudahooda ka dhaxdhaca baacsiga dambiilayaasha lagu hayo kuma eka oo kaliya magaalada Jigjiga iyo waliba dowladda deegaanka Soomaalida Ogaadeenaya ee magaalada Addis Ababa wararka naga soo gaaraya cawisnimadan caawa ayaa waxa ay sheegayaan in bracket Simon wasiirkii hore ee warfaafinta kana mid ahaa shakhsiyaadkii 27 sano dhibaatada ku hayay guud ahaan qaybaha kala duwan ee shucuubta dalkaasi Itoobiya iyo Tadase Kasa in xabsiga loo taxabay kadib markii ay hay'adaha ammaanku guryahooda ugu daateen Tadase Kasa iyo bracket Simon oo ka tirsan xisbiga axmaarada ee ADB da loo yaqaano ayaa waxa lagu eedeynayaa in ay sameeyeen dhibaatooyin bini'aadanimada ka dhan ah iyo sidoo kale dhac iyo boob ay u geysteen hantida shacabka mas'uuliyiintani hore uga soo tirsanaan jiray xisbigii ANDM ee qoomiyadda axmaarada ayaa waxa haatan ay ku jiraan mid ka mid ah saldhigyada booliiska ee magaalada Addis Ababa halkaasi oo lagu wado in maxkamadda looga waarido si loogu soo ogo dunuubta iyo waliba eedaha loo haysto bracket Simon ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadkii ugu awoodda badnaa ee ay isugu dhawaayeen ra'iisul wasaarihii dalkaasi Itoobiya Male Zenawi kaasi oo muddo 20 sano ah isagu talada dalkaasi Itoobiya xoog ku haystay